iyadoo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhashay waxna ku bartay dalalka reer galbeedka ayaa qaarkood horumar ka gaareen dhinacyada nolosha oo ay ka mid yihiin saameynta xagga siyaasadda dalka Mareykanka oo ay Soomaalidu door weyn ku leedahay waqtigan. Hi, my name is Nabiha Mohammed and I am born and raised in America. Tani waa warinta Nabiha Mohammed oo ah gabar Soomaaliyeed waxay dhalatay sanadkii 1983 iyadoo ku dhalatay dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Philadelphia waxayna ku soo kortay waxna ku baratay magaalada New York isla magaalada ayayna kaga baxday jaamacadda ku taalla magaalada Buffalo ee dalka Mareykanka. Nabiha Mohammed markii ay jirtay 17 sano ayay ku biirtay ciidamada dalka Mareykanka waxayna isku wadatay waxbarashadeeda iyo gudashada waajibaadkeeda ciidan. 4 jeer ayay heshay abaalmarin iyo dalacsiin xagga ciidamada ah. Sanadkii 2006 ayay dhamaysay gudashada waajibaadkeeda ciidanka Mareykanka waxay sii wadatay waxbarashadeedii. I have studied my bachelor's in business, my master's in business, and I'm currently studying clinical social work. waxayna shahaadada labaad ee jaamacadda ku qaadatay daraasaynta ganacsiga adduunka oo ay ku shaqaysay iyadoo ka mid noqotay cilmi baarayaasha jaamacadda New York iyo waliba magaalada. fahamka dalka Mareykanka iyo kala duwanaanta aqoomiyadaha ku nool ayaa waxaa sharaxaya Cabdullaahi Cali Baar Xoosh oo 10 sano ka soo shaqeeyay ciidamada dalka Mareykanka. qofka rabo Mareykanka inuu fahmo soo kala duwan yahay kala ahaan oo diversity-giisa wax la yiraahdo kala duwan yahay. military-ga hadda fiirisid aniga military-gan kamid ahaan jiray muddo 10 sano ah waxa arkaysaa si dadku kala duwan yihiin. waxa soo dhan military-ga ayaa intuu mideeyay buu dadka wuxuu u baray tacliin ah inuu qof kasta la shaqeyn karto. marka kala duwanaanshaha ay kala qaybsanaanshaha iyo Mareykanka waxay tahay hadda fiirisid waxa la dhaho homeostasis amal Mareykanka ciidamadooda ka arktaa gabadhana marka ciidanka ku jirtay marka waxa u maleynayaa qof namatali kara meesha ay fadhidana ka hadli kartaa oo codkeena ku hadli kartaa baahideena fahmi kartaa inay tahay baan aaminsanahay. Nabiha waxay markaas kadib waxay door weyn ku yeelatay sidii aqoonteeda ay ugu caawin lahayd gayiga Soomaalida waxayna dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kala shaqeynaysay arrimaha maalgashiga iyadoo maamulkii markaas jiray abaalmarin ku siiyeen sida ay u maamushay isuguna dubariday koruqaadida iyo kobcinta dhaqaalaha taasoo ay mahadiyeen maamulkii iyo dhalinyaro badan oo shaqalaan ahaa. soo laabashada Nabiha ee Mareykanka waxay dadaal gelisay sidii Soomaalida gobolka Minnesota u heli lahayd hay'ad u gaar ah oo ka shaqeeya danahooda una dooda waxayna aasaastay hay'ad u shaqeysa arrimaha caawinta hooyada iyo dhallaanka oo baahi weyn loo qabay. Marwa Nabiha waxay sidoo kale qayb ka qaadatay sidii loo kordhin lahaa awoodda ganacsatada Soomaaliyeed ee gobolka iyadoo qayb ka noqotay ganacsatada gobolka Minnesota gaar ahaan ay ganacsi ka samaysay magaalada Minneapolis kaasoo shaqo abuur u noqday dhalinyaro Soomaaliyeed. I am looking to help the youth of Minneapolis, specifically Ward 6. dhaqaaliyahan Maxamed Cumar oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ayaa waxaan weydiiyay Nabiha Mohammed aqoonta uu leeyahay maadaama ay hore u soo wada shaqeeyeen. Nabiha waxaan ku aqaanaa waa qof howlkara waa qof mar walba u heelan community-ga inuu u shaqeeyo waa qof ay ka go'an tahay Soomaalinimada dadnimada muslimnimada. Nabiha waxay hadda u sharaxan tahay golaha deegaanka magaalada Minneapolis gaar ahaan degmada 6aad booskaas oo uu baneeyay Cabdi Warsame iyadoo kaashanaysa khibradeeda dib u dhiska bulshada. Nabiha ayaa sheegtay in qorshaheeda koowaad uu yahay inay xalin degdeg ah ku samayso sidii loo joojin lahaa isdilka ama falalka guracan ee dhimashada sababa ee dhexmara daayirta Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan. I am looking to help create jobs for the youth. sidoo kale Nabiha waxay sheegtay inay sameyn doonto shaqo abuur si dhalinyaradu uga baaqsadaan isdilka oo marar badan ka dhacay gobolkan gaar ahaan xaafadda ay Soomaalidu degto xooga saarayso inay kaashato aqoonta ay u leedahay dhinaca amniga. Nabiha Mohammed waa hooyo 2 caruur haysata waxayna olole ugu jirtaa siday taageero uga heli lahayd bulshada ku nool gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis oo ay Soomaalidu u badan tahay. Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka.